wasiir xigeenka arrimaha dibadda dalkaasi Ruushka Mikhail Bogdanov oo sidoo kale madaxweynaha Ruushka ugu magacaaban ergeyga gaarka ah ee Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa booqasho ku tagay magaalada Muqdisho halkaas uu kula kulmay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan in iskaashi ka yeeshaan ammaanka, siyaasadda, ganacsiga iyo dhaqaalaha sida lagu faafiyay warqadka RT ee dalkaasi Ruushka. sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda dibadeedka dalkaasi Ruushka Bogdanov ayaa waxa uu la kulmay wasiir dibadeedka dalka Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inta aanu isdhaafsanayna aaraada ku saabsan arrimaha caalamiga ah ee imika oo ay ku jiraan xubinimada Soomaaliya ee golaha ammaanka xilliga 2025 iyo 26 waxaanu dareen gaar ah siinay arrimaha ku saabsan xasilinta nabadda iyo ammaanka Geeska Afrika iyadoo carabka lagu adkeynayo baahida loo qabo in dhaqso loo tirtiro halista argagixisada gobolka ayuu u dhignaa bayaanku. labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada xaajooday dhaqangelinta isfaham wada tashi oo ay wada saxdaan wasiir dibadeedyada labada dal bishii Maajo 2023 iyo sidoo kale in labada dal ay isla xusaan sanad guurada 65aad ee ka soo wareegtay markii la asaasay iskaashiga diblomaasiyadeed ee dalalka Ruushka iyo Soomaaliya oo ku beegan September 11keeda. saxaafadda Ruushka ayaa soo qortay arrin ay la yaabtay taas oo ah in saacado un kadib markii Bogdanov uu Axadii la kulmay wasiir dibadeedka Soomaaliya uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre isku shaandheeyay golihiisa wasiirada isagoo fiqi ka dhigay wasiirka cusub ee gaashaandhigga. lamana oga in Ruushku ay arrintaa wax ka ogaayeen iyo in kale balse qoraalka lagu xusin inay ogaayeen. si kastaba booqashada Ruushka ayaa daba socota mid baaqatay oo u bilowga codsaday Mikhail Golayanov oo ah danjiraha Ruushka u fadhiyay Djibouti kaasoo doonayay inuu Somaliland u diro laba qunsul oo kala ah Andrei Blatnev iyo Rostislav Panus iyadoo ujeedka Ruushku ahaa inay marka hore tagaan magaalada Hargeysa oo ay la kulmaan madaxda Somaliland kadibna ay tagaan oo soo arkaan dekada Berbera si bay yiraahdeen loo yaqleelo iskaashi dhaqaale iyo mid aadminimo oo dhexmara Somaliland iyo gobollo ka tirsan Ruushka sida warqadda loo qoray. ilkeeda Somaliland oo malaha ka xumaatay qaabka loo qoray warqadan oo walow lagu hagaajiyay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Ciro aan misna lagu xusin maqaam dalnimo ayaa si xun oo xil leh uga arsatay Ruushka oo iyaguna warqad ugu dhiibeen Maxamed Cabdiraxmaan Xasan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland. waxaana Ruushka warqadda jawaabta loogu qoray cudurdaar ku saabsan inaan xilligan la martigelin karin waqtiga oo ciriiri ah dartii. waliba Somaliland inta oo qura uga maharina waxay dusiyeen warqadihii la isdhaafsaday ee qarsoodiga ahaa iyadoo warqadda Ruushku ay u laabanayso 5tii bishii Febraayo ee sanadkan. xogaha qaar ayaa xitaa tibaaxaya in Somaliland ay diidmada dalabka Ruushka iyo xitaa dusinta warqadahanba ay ku dhaqaaqday kadib markii cadaadis kaga yimid dhanka Mareykanka. deeto Ruushka oo arrinta aad uga carooday ayaa si halhaleel ah Muqdisho ugu diray wafdi uu hogaaminayo wasiir xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Mr. Bogdanov oo Soomaaliya kala hadlay arrimo badan oo ay ku jiraan dhinaca ammaanka taasoo loo badinayo in uu Soomaaliya hubsiin karo. waxaana xitaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u wadacay casuumad uu kaga qayb galayo shirka Ruushka iyo dalalka Carabta oo dhacaya dabayaaqada sanadkan. ugu dambeynse dadka wax falanqeeya qaarkood ayaa sheegay inay Somaliland iska lumisay fursad qaali ah halka qaar kale ay qabaan in dowladda federaalka lafteedu ku degdegtay soo dhaweynta wafdiga Ruushka ee Muqdisho soo aaday kadib markii uu Hargeysa ku fashilmay. wala wafdiga Muqdisho tagay aanu ahayn kii aadi lahaa Hargeysa. Maxamed Xaaji, Hadal Same TV.